الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسيني لبعض كتابك سفينة الصلاة، وحين صارقني hordhaca kitaabkii hore caqiidada sheekhu in yaroo ka mid ah oo ku tilmaamay kadib shuruudda salaadu 12 inay tahay buu sheekhu soo tilmaamay. shardigii koobaad ee at-tahaara ayaa markaa aynu ku dhex jirnaa. shardigii tahaarada ayaynu ku dhex jirnaa. wuxuu sheekhu soo tilmaamay tahaaradu inay tahay mid la rabo saddex meeloodba in tahaaro laga helo. waa dharka iyo jirka iyo goobtii lagu tukanayay. tahaaratu athawbi walbadani walmakaan. waxaa laga daahirinayaa waa najaasaadkii. najaasaadkii sheekhu waa soo tiriyey oo waa uu inoo soo sheegay. kadib wuxuu sheekhu yidhi فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها أي نجسته. فمتى لاقت مركي لكلنته هذه النجاسات najaasaadkan markay la kulmaan waa najaasaadkii sheekhu uu soo tiriyey ee uu soo sheegay. marka ay la kulmaan thawb al-insaan, qofka maradiisa markay la kulmaan, aw badanahu ama jirhkiisa ay la kulmaan najaasaadkan, aw musallaahu ama goobtuu ku tukanayay markay najaasaadkaasi la kulmaan. waa qofka maradiisii ama jirhkiisii ama goobtuu ku tukanayay. aw gayrahaa ama kuwaa la soo sheegay waxaan ahayn oo min aljaamidaati waxyaabaha jaamidka engegan waxa weeyaan ay la kulmaan maca rutuubatin fiihaa, iyadoo lala qabo qoyaan najaasta ku sugan, aw fii mulaaqiihaa ama shayga ay la kulantay ayaa markaa qoyan. najaasaadkaa la soo sheegay haddii qofka dharkiisa ama jirhkiisa ama musallihiisa intaa mid ka mid ah ay la kulanto, ama wax kaloo jaamid ah oo iska engegan oo qalalan oo jaamidaadka waxyaabaha kale ka mid ah, isla markaa najaastu ay tahay mid iyadu waxa weeyaan rutuuba iyo qoyaan leh maca rutuubatin fiiha, iyadii baa qoyan oo najaastii waa najaas qoyan weeyaan. aw fii mulaaqiiha ama shayga ay la kulantay ayaa markaa qoyan, ama najaastii baa qoyan ama najaastu way engegan tahay laakiin shaygii la kulmay ayaa markaa qoyan. labadii mid baa qoyan ama dee labaduba way qoyan yihiin. hadday sidaasi dhacdo najasathu ayaa markaa qadiran. najaasaadkaasi waxa ay la kulmeen way najaasaynayaan. intaa marka waa la soo qadaraya oo macnihii baa ku hagaagaya. marka macnuhu waa maxayna? najaastu shaygay la kulanto way najaasaynaysaa macnuhu weeyaan. najaasaadkii lasoo sheegay ee lasoo tiriyey hadday tahay alkhamru, najaasaadka maxaa ka mid ahaa? khamrigi, algaa'id, albawl, alrawth, addam, alqayx, alqay-u, alkalbu, alkhinziir, almeyta. waa najaasaadkii. najaasaadkaasi hadday shay la kulmaan, qofka dharkiisii, jirhkiisii, musallihii uu ku tukanayay, shay kaloo jaamid oo iska engegan
haddii najaasadu shay la kulanto way najaasaynaysaa. waa goorma haddaba? waa marka najaastu ay tahay mid qoyan. hadday kaadideedii tusaale ahaan oo dareereysa, ama saxaradii oo qoyan, ama khamrigii, yaa ama waxyaabihii kale oo qoyan. saaladii alrawthu oo markaa qoyan baa shay la kulmay. mar haddii iyadii qoyan tahay, shaygii ay la kulantay way wasakhaynaysaa soo maa? shaygaas waa najaasoobaya. ama najaastii iyadii ma qoyana, way engegan tahay. waa saaladii oo engegan, yaa wax qoyaanaa ma lah, way qallashay. ama kaadidii meeshaa ku daadatay ee lagu kaajay oo engegtay, ama khamrigii meeshaa ku daato engegay, laakiin shayga la kulmay ayaa qoyan. adigiiyo qoyan ayaad waxaa taabatay meel kaadi ku daadatay ood ku istaagtay, ama khamri ku daatay, ama saaladii baad soo qaado kugu dhacday adoo qoyan. tusaale ahaan najaastii way engegan tahay, laakiin adigii baa qoyan. mar haddaad adigii qoyan tahay, najaastii engegnayd de way ku saameynaysaa, way ku soo gaadhaysaa. haddii labadiidiiba aad qoyan tihiinna de way kasii xag jirtaa. iyadiiyo qoyan iyo adigiiyo qoyanna min baabi alawlaa. intaasuu sheekhu markaa inoo sheegay. haddii najaasaadkaasi la kulmaan, hadday wax la kulmaan iyadoo waxa weeyaan qoyan, ama shaygu uu qoyan yahay oo fii mulaaqiiha kan la kulmaya qoyan oo ruduub ay ku sugan tahay, way najaasayn. intaas waa qodob. fain kaana lahaa طacmun, haddii najaastii طacm iyo dhadhan uu u sugnaaday, aw lownun ama uu midab u sugnaaday, aw riixun ama ur ay u sugnaatay. oo najaastii waa najaas طacmi iyo dhadhan leh, ama midab iyo lown bay leedahay, ama riix yani ur bay leedahay. najaasta waxa weeyaan hadday leedahay saddexdaa arrimood mid ka mid a, waxaa la yidhahdaa annajaasatu alcayniya. annajaasatu alcayniya. haddii najaastu ay leedahay sifo daahira, wax muuqda oo amba dhadhan ah, amba midab ah, amba ur ah, haddii najaastu intaa mid ka mid a ay leedahay, waxaa loo yaqaana annajaasa alcayniya. kulu najaasatin lahaa sifatun daahiratun min lownin aw طacmin aw riixin aw lahaa jirmun mushaahad yusamaa annajaasa alcayniya. waa kalbowl walgaa'id. waa sida kuwaas oo kale, saxaradii iyo kaadidiiyo waa najaasatun cayniya la yihahdaa. haddaba sheekhu wuxuu leeyahay, fain kaana lahaa najaastii hadduu u sugnaaday طacmun dhadhan, aw lownun ama midab, aw riixun amba ur, intaa mid ka mid a hadday leedahay. hadday najaastu ur leedahay, de urteedii baa inoo muuqan soo ma, oo la urinaya. hadday midab leedahayna midabkeedii waa la arkaa. طacmi waa dhadhan. dhadhan inay leedahay maxaa lagu ogaanaya? lan shay najaasa qofka inuu dhadhamiyo afkiisa wagadiyo ma loo ogolyahay? looma ogola. marka maxaa lagu ogaan طacmi inay leedahay? yacni mar haddii meeshaa najaasay timid oo urteedii inoo ureyso, ama midabkeedii la arkayo, hadday dhici lahayd qofku inuu dhadhamiyo, carabkiisa uu ku dayo, dee dhadhan baa meeshaa ka imanaya. laakiin looma ogola inuu dhadhamiyo. dacmigaasi meesha inuu ka baxayna waxaa lagu ogaanayaa markii la daahiriyo kadib. markii wixii qofku daahiriyo kadib uu ogaado inuu wixii nadiifiyey, hadduu carabkiisa meeshii uu ku dayo, waxaa usoo baxaysa wax dhadhan aynan lahayn. dhadhankii meesha uu ka baxay, bimacnaa hadda way daahirowday macnuhu weeyaan. fain kaana lahaa طacmun, طacmi haddii ay leedahay dhadhan, aw lownun ama midab, aw riixun ama ur, wajaba gasluhaa, waxaa waajibaya in la maydho najaastii, xataa yazuula, ilaa meesha uu ka zuulayo, uu ka baxayo dee midabkii ama urtii ama dhadhankii.
وإن ماشي اللي جزوليا نجاستي النجاسة العينية وإن الزولية ودرنكي أما مذبكي أما أورتي وإن ماشي يكبح ذا وإن حاس ماشي وكبحها تاسا واجبة وإيه بقى صدح ذا بوجودها وإن الزولية حتى يدعى لكن markuu qofkii uu zuuliyo uu nadiifiyo uu maydho hadday dhacdo in cayn an-najaasa meesha uu ka bixi waayo najaasta caynteedii meesha hadday ka bixi weydo waa qasab ilaa inta ay ka baxayso in waxa weeyaan tahaaradii iyo dhaqitaankii iyo nadiifintii lagu wadaa laana najaasta caynteedii ama طacmigeedii iyo dhadhankeedii in meesha uu ka muuqdo wuxuu tilmaamayaa najaastii inay baaqi tahay marka ma yatacallaq biطacmi الnajaasa oo tilmaamaya caynteedii inuu baaqi yahay iyada lama cafiyo waa in meesha najaasta caynteedii halkaas saxaradii halkaas soo taagtaagan oo fadhida qofku ma odhan karo waan isku dayo meeshii way ka bixi weyday may waa inuu qofku si fiican meesha uga dhaqaa laakiin markuu qofku cayntii najaasada uu meesha ka saaro oo si fiican u dhaqo hadday dhacdo in midabkii soo haro midabkii waa soo haray xoogaa sandhiigii oo kale gudgudud ama wax yaroo casaankii ka baaqiya meesha ku soo haray marka caynkaasi wax dhibaato ma laha mar haddii cayntii meesha laga saaray urtiina ay ka baxday laakiin midab yar uu kasii baaqi yahay inta waa la cafinaya ama urtiibaa baaqiya cayntii meesha way ka baxday midabkiina uu ka baxay laakiin weli ur baa meesha jirta markuu qofkii wixii uu dhaqay uu hagaajiyey najaastii uu ka hagaajiyey najaastii meesha way ka baxday midabkii meesha uu ka baxay laakiin waxoogaa ura ayaa weli uu qofku dareemaya intaa waa la cafinaya mar haddii qofki ay ku cuslaatay inuu zuuliyo haddii meesha ay ku kulmaan lownkii iyo alriix wallown oo midabna meesha waa yaalaa urna meesha waa taalaa markaa labadaasoo isku teg waxay sheegayaan najaastii weli meeshii kamay bixin markaa lama cafinayo markaa saddexda arrimood mid waa la cafiyaa waa kee saddexda arrimood mid lama cafiyo waa cayn annajaasa wa dacmuha lama cafinayo labada soo haray haddii miduun meesha uu yaalo lown oo bilaa riixa ama riix oo bilaa lowna waa la cafinaya haddii labadaas meesha iskugu yimaadaanna lama cafinayo nacam marka xadiidkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa markaa loo daliishadaa maslada caynkaasi khawla bintu yasaar inuu nebigu u timid ee tiri nebi allow hal maraan haystaayo dhiigga xaydku markuu iga gaadho ee aan ka maydho waxa weeyaan waxay tilmaamtay in wax ay kasii baaqi yihiin maxay raadkii dhiigga rasuulku wuxuu ku yakfiiki gaslu dam walaa yaduruki atharuhu wixii raad uu ka tago midab ah ama ur ah dhibaato kuu keeni maayo mar haddaad dhiiggii meesha aad ka saartay oo aad wax weyaan dhaqday wain lam yakun laha nacam uma yaziidu kadib wuxuu qofku ku siyaadinayaa markuu najaastii uu meesha uu ka nadiifiyo uma yaziidu waa ziyaadinayaa fii najaasati اlkalbi wاlkhinziiri ayga iyo doofaarka najaastooda wuxuu qofku ku darayaa uu ku siyaadinayaa 6 ghasalaatin 6 jeer ou maydhayo waaxidaة minhaa mid ka mid ahna mamsuujaة bituraabin طahuurin ay tahay mid lagu badxay ciid daahira waxaan la nadiifinaya daahirinaya hadduu yahay najaastii ayga ama doofaarka hadduu labadaa mid ka mid a uu yahay wuxuu qofku ku darayaa markii koowaad markuu maydhay ee uu dhaqay oo cayntii najaastu meesha ay ka baxday wuxuu ku darayaa 6 goor oo kale oo mid ka mid a uu ku dhex daray biyo uu ku dhex daray ciid iyo carro uu ku dhex daray weliba waxaa fiican ta ugu horeysa in lagu daro sida xadiista qaarkood ku soo aroortay طuhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yagsilahu 7 maraatin uulaahuna bituraab ta koobaad waa inay ciid noqotaa buu rasuulku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ka ciiddii baa biyaha lagu dari saa lagu maydhaya ama shaygii ayaa ciid la marmarin markaasaa biyihii lagu dhaqaya labada qaabba qofku waa samayn karaa halkaa markaa wuxuu inoo tilmaamayaa najaasta
أيgu inay maxay tahay مغلظة نجاسة صدح baa loo qaybiyaa نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة ونجاسة الكلب والخنزير أيga iyo doofaarka najaastoodu waa مغلظة waa la adkeeyey. maxaa la adkeeyey? qaabkii loo daahirinayay waxaa la yidhi marka koobaad waa in la maydho weliba ciid la raaciyo. najaastii markay meesha ka baxdo 6 goor oo kalena ha la dhaqo. marka qaabkii loo daahirinayo waa la adkeeyey. aygu xadiidku ku soo arooray khinziirkana way uga tusaale qaateen. النجاسة المخففة waa ilmaha yar ee radiica ah waxa weeyaan 2 sano ayna u dhamaanin weeyaan oo isaga kaadidiisa biyaa lagu rushaynaya in la maydho oo la dhaqaa qasab maaha laakiin meeshii uu ku kaajay biyuun baa saa loogu rushay. yughsalu min bawli الjaariya wa yurashu min bawli الghulaam ayaa nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wassalaam. labadaa waxaan ahayn najaastoodu waa mutawasita. النجاسة المتوسطة ونجاسة غيرهما labada aan sheegnay waxaan ahayn غير نجاسة الكلب والخنزير وغير نجاسة الصبي بول الصبي. marka inanta yar najaasa المتوسطة soo guda galaysa waa wiilka wax laga hadlaya iyo dadka kale iyo najaasaadkii kale oo dhan waa mutawasita. maxaa laga wadaa? waa in la daahiriyaa najaastuna meesha ay ka baxdaa. haddii hal mar intay kaga baxdo najaastii khalaas halkaa mar baa ku filan. haddii 2 mar kaga baxdo 2daa mar baa ku filan. waa in shaygan najaastan caynteedii la zuuliyaa un oo meesha laga saaraa iyo lownkii iyo wax weeyaan urteedii waa in meesha laga wada saaraa. ama hal mar ha ku baxdo ama ka badan ha ku baxdo. markaa taasuu sheekhu halkaa inoogu ishaaray. ayga najaastiisa marka la dhaqayo waxaa nidhi waa maxay? waa 7 goor. marka koobaad baa biyo iyo ciida. 6da goor ee kalena waa laga daba geynayaa. haddaba 6dan goor ee laga daba geynayaa waxaa ka horeeya marka koobaad in najaasta ayga ay meesha ka baxdo. haddaad aygu meeshii uu carabkii afkiisa ula galay intaad dhaqdo hal mar baad maydhay saad aragta weli najaastii meesha inay ku jirto mar labaad baad maydhay weli najaastii meesha inay tahay baad aragtay mar saddexaad baad maydhay najaastii baad arki weydo meesha way ka baxday. 3daa goor waa hal marun. 3daa goor waxay waa hal marun. 6 goor oo dambaa lagaa rabaa. marka koowaad waa in najaastii ayga meesha laga saaraa ama hal mar ha ku baxdo ama ka badan ha ku baxdo. markay meeshii ka baxdo ayaa 6 goor oo dambe laga daba geynaya. 6 goor oo dambe ayaa laga daba geynaya. nacam waaya wuxuu sheekhu yidhi ثم يزيد deeto qofku wuxuu ku kordhinayaa في نجاسة الكلب والخنزير ayga iyo doofaarka najaastooda wuxuu ku kordhinayaa marka uu daahirinayo 6 غسلات 6 maydhis ayuu ku kordhinayaa ay bacda zawaali athari najaasa najaasta atharkeedii markuu meesha ka baxo. waaxidatun minhaa 6daa goor mid ka mid ahna mamsuujatun waa mid lagu badxoo lagu daray bituraabin dahuurin ciid daahira. waa ciid daahira. ciid wasakhaysanoo markeeda horeba najaasa ku dari maysid oo ku meydhi maysidee ciid iyadoo daahira baad wax kusii daahirinaysa. marka koowaadee markan ciidda lagu darayana in marka koowaad ay noqotaa fiican sida xadiista qaarkood uulaahuna bituraab rasuulku ku tilmaamay calayhi الsalaatu wassalaam. wain lam yakun lahaa طacmu aw walownun wariixun wain lam yakun lahaa najaastii haddaynan lahayn طacmun wax dhadhan ah walownun wax midab ah wariixun wax ur ah intaa midna ma laha. haddiina najaastii طacmi iyo lown iyo riix inta midna haddaynan lahayn najaasta caynkaasi iyo 3daa midna aan lahayn waxaa la ihahdaa الnajaasa alxukmiya. النجاسة الحكمية. إذا النجاسة محل الله قيبية النجاسة تنقسم إلى قسمين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. النجاسة العينية كل نجاسة لها أثر من لون أو ريح أو طعم
ووحي راذ له. والنجاسة الحكمية كل نجاسة جفت ولم يبق لها أثر من لون أو ريح أو طعم. ووحي نجاس انجا لكن وح راذابا oo ay ka tagto ka muuqdaaba una jirinba oo midabna meeshii ma yaal dhadhanna ma jiro urna ma jirto taa maxaa la yiraahdaa an-najaasa al-hukmiyya salahan ilma yar baa meesha ku kaacay meeshu way iska ingegtay haddaan meesha fiirino waan ognahay in halka kaadi ay gaadhay laakiin kaadidii inooma muuqato wax ur ah oo meesha ka muuqdaana ma jiro carabkana dee ku eegi maysid ilaa meeshii najaas baad ogeed inay waxa weeyaan ay gaadhee laguma ogolaba carabkii inaad la gaadho laakiin labadii arrimood kale waa laga waayay wax ka muuqdaa ma jiro taa maxaa la dhahdaa an-najaasa al-hukmiyya meesha najaas baa way najaasaysan tahay xukun ahaanoo yani caynteedii inooma muuqato wax cayna najaas lafteedii meelkaa ka muuqato ur ahaan ama midab ahaan ama yadii taalaba meeshii ma jiraan waa najaasa al-hukmiyya haddii najaastii loo jeedo la arkayo ama midabkeedii ama urteedii la arkayana oo la urinayana waa najaasa al-cayniyya markaa tiidan buu sheekhu sheegaya wain lam yakun lahaa najaastii hadduuna u sugnaanin dacmun wax dhadhan ah walownun wax midab ah wariixun iyo wax ur ah intaa midna ma laha in kaanat min alkalbi waalkhinziiri marka najaastan waxa weeyaan xukmiyada ah sheekhu laba u kala qaadaya hadday tahay najaas aygii iyo doofaarkii ka timidna toddobadii goor baa la maydhayaa hadday tahay najaas ay iyo doofaar waxaan ahayn ka timidna hal mar baa nagu filan in la maydho hal mar baa biyihii lagu maydhaya khalaas saasaa loo kala qaadaya in kaanat min alkalbi waalkhinziiri ay iyo doofaar xaggii hadday ka ahaatay غسلها وحو قفك ميريا 7 غسلات تدو غوربو ميريا واحدة منها مد كمدانا ممزوجة أي تاي مد لغو برحي بتراب طهور عيد طاهرة وإن كانت من غيرهما حديت هاي وحان أي يدوفار هين من غير الكلب والخنزير غسلها وحو قفك ميريا نجاستها مرة واحدة هل مربو ميريا هل مر أي مكا ميريا نعم وانت تبقى لما يريو حديث كان شيخنا هره با marka tilmaamayay in hadina waday tahay ay doofaarka oo laga qiyaas qaatay hadina kuwa ahayna hal marun baa la maynaya yuqsal min bawl al-jariya waa la maynaya waa hal mar yaani ninkii masaajidka ku kaajay carabiga haana rasuulku wuxuu tilmaamo meesha uu ku kaajay in biyo lagu shubo oo lagu afkan biyo hal mar halkaa mar bay ku suulaysa marka laakiin haddii la arko wixii aan suulin yaa waa taasi waa cayniyade waa in la suuliyaa ilaa intay ku suulayso xukmiyadu laakiin awalba wax najaaso de lafteedu meesha inoo yaalo la arkayay may jirin ويجب وحا واجب صب الماء إن بيه لغو الشبو على المتنجس وحي نجاسوبي بيها وإن لغو دل الشبو حق السنة لغا كينا إذا كان الماء ودي بيه يهين دون القلتين لبا قلو وحكير لبتش الحدود هدي بيه كريهين لبتش الحدود أما لبا قلو هدي كريهين بقول يلا بعتين 5 لتر ميلها تقريبا ويان قلتين كهدي لفيريو واللتر لغو ايغو وبقول 25 لتر ميلها قياستين قلتين بالإرادة هدي بيه قلتين أي كيريهين لكن قلة wax lagu qiyaasay barigii hore markii litro kale loo rogana 125 litr bas ka noqonaya taqriiban hadaba shaygii najaasoobay khamiiskaagii shaarkaagii surwaalkii waxba ka najaasoobay inaad maydha doonaysaa sidee najaasta caynkaasi yaa meesha looga saaraya waxa la fiirinayaa biyaha aad haysato biyaha aad doonayso inaad wax ku daahiriso ayaa la eegayaa haddii biyuhu laba qullo ay ka yar yihiin labada qullo waa laba jilxadood laba foosto gobol foosto halfkeed iyo foosto halfkeed haddii la isku daro waa hal foosto oo dhammaystiran amaba 125 litr dheh 125 litr haddii biyuhu ka yar yihiin oo ina gaadhayn
waxaa la rabaa shaygii aad daahirinaysay biyaha xagga sare kaga keen shaygii intaad weel ku dhex riddo yaa biyihii dusha kaga shub kadib najaastii sidaa ha ku dhaafta shaygii iyagoo biyuhu xagga sare ka yimid waa hadday biyuhu ka yar yihiin 2 qullo hadday 2 qullo iyo ka badan ay yihiin oo aad waxa weeyaan biyihii meeshaad ku shubato shaygii inaad ku dhex riddo shaygii inaad sidaa ku daahiroobo wax dhibaataa ma laha bay leeyihin maxay ku dhisan tahay tan haddaba ah biyaha dusha laga keeno waxay ku dhisan tahay masaladan soo socoto sheekhu keeni doono oo ah biyuhu in loo qaybiyo 2 qaybood biyo yar iyo biyo badan hadday biyuhu yar yihiin najaasta iskama qaban karaan baa la yidhi hadday biyuhu biyo yar yihiin najaasta iskama xajin karaan hadday biyuhu biyo badan yihiinna najaasta way iska qaban karaan markaa biyaha yar haddaad biyo yar haysato oo intaad biyihii weel ku shubto shaygii najaasta ahaana aad sidaa ugu dhex riddo isla marka shaygii biyihii uu sidaa ugu dhex dhaco bay biyihii najaasoobayaan waa biyo yare biyihii baa yar markaasuu wixii najaasoobayaaba hadday laakiin biyuhu badan yihiin inay najaasoobaan biyahaas waxay ku xidhan tahay uun in ama lownkii ama dacmigii ama riixdii ay isbedelaan hadday isbedeli waayaanna biyihii may najaasoobin hadday isbedelaanna biyihii najaas bay noqdeen laakiin de kuwa dambea haddanaad mar labaadba kuwaasaad ka saaraysaa biyo dambaad waxa weyaan aada raacinaysaa marka biyo yar iyo biyo badan bay culimmadu biyaha u kala qaybiyeen culimmada qaarkood biyaha yar waa wixii 125 litir ka waxa weeyaan ka yar biyaha badanna oo biyaha halkaa gaadha ama ka bata waxayna u daliishanaa xadiista qaarkood idaa kaana almaau qullatayn lam yaxmil alkhabath hadday biyuhu 2 qullo ay ka hooseeyaan yaa najaasta ma xambaaraan hadday gaadhaan ama ay ka badan yihiin najaas ma xambaarayaan haddii laakiin idaa kaana almaau qullatayn haddii biyuhu 2 qullo ay yihiin lam yaxmil alkhabath najaasta ma xambaaraan waa hadday 2 qullo yihiin ama ay ka badan yihiin hadday ka yar yihiin laakiin waxaa laga fahmaya xadiidka najaastii bay xambaari karaan baa laga fahmaya halkaasay ka qaateen waa xadiid culimmada qaarkood sixadiisana ay waxaweyaan ka hadleen mafhuumka iyo macnaha ku duuganna dooday ka waxaweyaan ka dhaliyeen oo ay leeyihiin biyihii waxba biyo yar iyo biyo badan loo kala qaadi maayo laakiin halkaasay masaladan sheekuu sheegaya ay ku salaysan tahay haddaba soo koobo shayga najaasoobay markaynu dhaqayno haddaynu ku dhaqayno biyo yar yaa biyuhu waa in xagga sare ka yimaadaan bay leeyihin maxaa markaa qalada in tashtigii ama qasaalada biyaha lagu maydho lagu maydho dharka oo kale dharkii caruurtee najaasaysnaa inta biyihii lagu furo marka koobaad in dharkii lagu dhex ridaa maxay noqonaysaa midaan sax ahayn waa goorma biyaha meesha ku dhacay hadday yihiin biyo yar aan badnayn dabcan oona biyo yaro dee qullatayn ma gaadhaan biyaha qasaalada lagu shubaa qullatayn ma gaadhaan marka maxaa sax noqonaya waxaa sax noqonaya marka koobaad dharkii ama wixii aad meydhaysay meesha kusii rid qasaalada ku rid kadib biyaha ku fur goodhow najaastii sidaa ha ku dhaafta marka saasay leeyihin haddii kale biyihii marka aad kusii shubato oo shaygii najaasta ahaana aad dusha kaga soo rido markuu sidaa u taabtuu najaasoobaya marka waxaan wareegayaa waa najaasun baa wareegaysa bay ku leeyihiin waxba maa daahirine waa uun najaasun baad wareejinaysaa ilaa maanta nacam masaladaasay ku dhisan tahay kolley masalo culimmadu ay ka hadleen weeyaan oo lagu khilaafay madhabka laakiin siduu sheekhu u jeedaa waa caynka wayajibu waxaa waajiba sabulmaai in biyaha lagu shubo cala almutanajisi wixii najaasoobay waa goormo oo dusha lagaga shubo in kaana almaau hadday biyuhu yihiin duuna alqullatayn 2 qullo wax ka yar fain udkhila almutanajisu wixii najaasoobay haddii la dhexgeliyo fiihi biyihii haddii la dhexgeliyo biyihii meesha yeelaa shayga najaasoobay dhexgelisay lam yadhur ma daahiroobayo ma daahiroobayo biyihii baad shaygii soo dhexgelisay oo shaygii baad dusha aad kaga keentay biyihii meesha kuugu jira lam yadhur ma daahiroobayo marka biyuhu yar yihiin watanajasa almaau biyihiina waa najaasoobayaan wa mulaaqiihi iyo wixii biyahan la kulmay
ode wixii biyuhu ay la kulmeen iyo biyihiiba way isla wada najaasoobaya ilaa biyihiiba biyo yar ah oo aan badnayn maxaa markaa halkaa laga fahmayaa hadday biyuhu badan yihiin wax dhibaataa ma lah sheekhaana soo wada insha Allah uu keenaya wayajibu waxaa qofkii ku waajiba wayajibu calayhi ruuxii waxaa ku waajiba alistibraa'u inuu iska soo dhameeyo uu iska bari yeelo iska dhameeyo min albawli kaadidii markuu qofku kaajayo waa inuu kaadidii iska dhameeya xataa yaqliba calaa dannihi ilaa malihiisa ay ku xoog badanayso annahu laa yacuudu in kaadidii ayna soo noqonayno walaa yakhruju mar dambe ayna soo baxayn markuu qofku kaajayo waa inuu iska hubiyaa kaadidii inay ka dhamaatay maxaa la diidaya markaa inuu qofku degdego isagoo kaajayo weli kaadidii ayna kasoo wada dhammaanin uu is og yahay ama uu arkayo ama uu malaha u badinayaba in ay weli wax soo socdaan hadduu iska kaco ya intuu idhahdo waan iska maydha hadduu kaco maxaa dhacaya dee kaadi kaloo waxa weeyaan soo socotay inay qofkii kusoo dareerto markaa qofku waa najaasoobaya markaa maxaa waajiba in kaadidii qofku iska dhameeyo ilaa uu qofku malihiisa uu u badiyo in wax damboo soo baxaya ayna jirin uma yastanji intaa kadib buu qofku istinjoonaya marka halkaa laba arrimood baa la iska ilaalinayaayo waxaa la iska ilaalin inuu qofku iska sahashado oo kaadidii weli aan ka wada dhammaan uu kaco dee tow najaasoobo taas waata sheekhu uu diidayo sidoo kale waxaa la iska ilaalin inuu qofku shakiyo oo sida qaarkood masalada markay ka hadlayeen way adkeeyeen waxay yidhahdeen waa in qofku iska soo dhameeyaa xubintiisii taranka waxa weeyaan uu aada u hubiyaayo uu tuutuujiyaa uu kaca uu boodboodaa taasna waa waswaas waana bidca wax ka jira ma laha wax saxa hadday tahay dee adilada ay noo sheegi lahayd marka taasna waa mubaalaqo waa ka badbadin inuu qofku kaco uu socsocdo cabaar isagoo isla iska soo dhamee yaa ama uu boodo ama uu waxa weeyaan meeluu ka soo boodo waxaasi wax asalla ma aha waswaas bay tilmaamaysaa qof xanuunsanaya bay calaamad u tahay markaa qofku waa inuu isdaweeyaa uma yastanji kadib buu qofku istinjoonayaa kaadidii markay ka soo dhamaato wayurkhii duburahu wayurkhii waa inuu dabciyaa duburahu duburtiisa iyo xaggiisa dambe xataa yaksila ilaa uu maydho maa fii dabaqaatihi laalaabka jirhkiisa wixii ku sugan oo min anajaasa wayadlukuhu deeta uu gacanta waxa weeyaan markuu maydhayo uu iska maydhayo uu gacanta mariyo gacantiisa uu ku duugo gacanta uu ku nadiifiyo hadduu qofkii saxarooday waa inuu siduu kaadi iskooga hagaajinaya si leeg ama ka daranba iskooga hagaajiyaa saxaradiina oo markii qofku uu fadhiisto saxaradiisa uu dhamaysto waa in qaarkiisa dambe iyo baryihiisa uu dabciyaayo uu isku dayaa wixii waxaan ka soo baxay haddii meelo kale u yaro gudbay meeluhu u gudbayna waa inuu ka dhaqaa halkii uu ka soo baxo keliya hadduu qofku dhaqas idhaahdo waxaa dhici karta haddii jirhkiisu laablaab uu lahaa ama qof miisaankiisu cuslaa u ahaa in meelo kale wax u gudbeen baa macquula marka meesha ay wax ka soo baxeen iyo meelaha ka ag dhow waa inuu qofku si fiican uga dhaqaa gacantiisana uu mariyaa marka uu waxa weeyaan uu iska dhaqayo ama kaadi ha iska maydho ama saxara ha iska maydho waa inuu gacantii isticmaala istixbaaban waa haddii si kale waa haddii dalkiga la-aantii najaastu ay ku baxayso hadduu marku qofku kaajayo una gacantaba isticmaalin uu biyihii isku dul shubo sidaanuu ku daahiroobo wax dhibaataa ma lah waa caadi laakiin hadduu og yahay najaasta meeshaa gaadha inayna baxaynin ilaa gacantiisa uu mariyo maxaa la rabaa inuu gacantiisii mariyo gacantiisa uu ku dhaqo ayaa la rabaa ilan si kale najaastii meesha kaga bixi mayseen wayurkhii duburahu duburtiisa iyo intiisa dambe qaarkiisa dambe iyo baryaha qofku waa jilicinaya xataa yaksila ilaa uu maydho maa fii dabaqaatihi waxa laablaabka jirhkiisa ku sugan oo min annajaasa najaasa wayadlukuhu gacantuuna marmarin doonaayo markuu dhaqayo gacantu uu isticmaalaya xataa yaqliba calaa dannihi ilaa malihiisa ay ku xoog badato zawaalu dacmi najaasati najaasta dhadhankeedii inuu zuulay
walownihaa midabkeedii uu suulay wariixihaa urteediina uu suulay wuxuu sheekhu ka wadaa ilaa najaastu ay meesha ka baxayso waa inuu qofku najaasta uu iska dhaqa markuu ogaado ama uu malihiisa u badiyo najaastii meesha inay ka baxday way ka dhan tahay markaa degdegii baa la diidayaa ama meesha wax ku baaqi yihiin inuu qofku iska kaco un taasaa la diidayaa wax intaa kasii badanoo mubaalaqo ka badbadinaana oo kalifaad tilmaamayna qofku la iman maayo oo diinta ilaahay waa sahle si fudud buu qofku la dhaqmayaayo isku adkayn maayo muhiimadda lagaa rabaa waa najaastii iska hagaaji oo iska dhaq oo meesha ka saar waa intaa weeyaan wamataa laaqat الnajaasatu اlmadkuuraat najaasaadkii lasoo sheegay markay la kulmeen almaa biyihi sheekhu wuxuu soo wadaa mas'alo hadda inshaarano ah haddii najaasaadka lasoo sheegay wax ka mid ah biyihii ay ku dhacaan ay la kulmaan biyaha xukunkoodu muxuu noqonayaa marka in yar aynu koobno kadib insha allahu tacaala aynu aqrino haddii biyihii najaasiya ku dhacdo biyaha laba loo kala qaybiyaa sidaan hore u sheegnay biyo yar iyo biyo badan biyaha badan aan ku horeeyo biyo fara badan oo meel kuu yaala haddii najaasiya ku dhacdo ama ay gaadho najaastaasina wax raadaa biyaha badan ayna ku yeelan biyihii ismay bedelin dhadhankoodii ismuu bedelin midabkoodii ismuu bedelin urna ma yeelan laakiin najaas baa gaadhay barkad dhan oo biyaha ama biyo fara badan oo halkaa kuu yaalay baa kaadi gaadhay ama saxaraa waxa weeyaan ku dhacday biyuhuna way badan yihiin biyihii ismay bedelin urtoodii ismay bedelin midabkii ismuu bedelin dhadhankii ismuu bedelin biyahaas waa biyo daahira najaastaa ku dhacdu baa laga soo qaadi waa la tuuraya biyihiina waa biyo daahira oo la isticmaali karo wax dhibaataa ma qabaan waa biyahee waa biyaha badan waa markeena isbedelin biyihii badnaa haddii najaasay ku dhacdo iyagoo badan najaastii ay bedesho saddexdii wasfi mid ka mid ah saddexdii sifo asifaat athalaatha alطacm aw allown aw alriix saddexdaa mid ka mid ah ama ka badan baa isbedelay biyuhuna way badnaayeen najaastii ku dhacday bay isku bedeleen macnuhu waxa weeyaan biyihii waxay ku saamoobeen najaastii biyahaas way najaasoobeen markaa haba badnaadaan mar hadday isbedeleen way najaasoobeen halkaas ma dhan tahay biyihii badnaa haddii najaasiya ku dhacdo waa laba un inay isbedelaan inayna isbedelin hadday isbedelaan way najaasoobayaan haddayna isbedelinna ma najaasoobayaan labadaa masale khilaaf kama taagna biyihii yaraa kaalay biyihii yaraa biyaha yar haddii najaasiya ku dhacdo yadna waa laba xaalown inay isbedelaan inayna isbedelin biyo yar caagad yaroo biyaa jirkaan biyaa biyo aan badnayn baa najaas gaadhay biyihii way isbedeleen biyahaas waa najaas wax muranoo ka taagani ma jiro waxaa inoo soo haray biyihii yaraa oo najaas ay gaadhay laakiin wax isbedeloo inooga muuqdaa ma jiro caagad biyo halkaa kuu taalay ayaa dhibic kaadiyaa ku dhacday ama saalo yar baa ku dhacday biyihii ismay bedelinba midabkoodii waa caadi urtoodii waa caadi hadduu qof cabo dhadhankoodii waa caadi ismay bedelin laakiin biyuhu way yar yihiin najaas baana ku dhacday biyaha xukunkoodu waa maxay biyaha culimmadeenu waxay leeyihiin fuqahadeenu shaaficiyo iyo badanka madaahibtuba biyahaasi waa najaas xataa haddayna isbedelin waa najaas bay leeyihiin oo biyahan isbedel wuu ku yimidee inooma muuqdo mar hadday biyuhu biyo yar yihiin najaasna ay ku dhacdo ama ha isbedelaan oo ha inoo muuqato isbedelkii ama yuuna inoo muuqane biyahaasi waa najaas bay idhahdeen fuqahada qaarna waxay leeyihiin may mar haddii wax ka muuqdaa uuna jirin biyuhu waa daahir biyuhu waa daahir marka afar suuro weeyaan afarta saddex waa la isku waafaqay mid baa uu ka taagan yahay maxay khilaaf biyaha badan hadday isbedelaan najaas ay isku bedelaan biyihii badnaa waa najaas haddayna isbedelin waa daahir waa biyihii badnaa labada waa la isku waafaqay biyaha yar haddii najaasya ku dhacday najaastii isku bedelaan biyahaasi waa najaas waa la isku waafaqay biyihii yaraa najaas baa ku dhacday isbedelna kama muuqdo sida madhabku sheegayo iyaguna waa najaas walow wax isbedel ayuuna ka muuqan be waxay leeyihiin biyaha yar najaasta iskama qaban karaan
xadiidkii sheeganay ayay markaa u daliishanayaano idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabath hadday biyuhu laba qullo iyo ka badan ay yihiin najaasta ma xambaaraan, yani way iska xajin karaan wixii bedelo mooyaane. maxaa laga fahmayaa wixii laba qullo ka yar waa biyo yare 125 litir wixii ka yar waa biyo yare. waxaa laga fahmayaa xadiidka najaastii ma xambaari karaanoo iskama xajin karaan. intaasuu sheekhu inoo soo wadaa. wamataa laaqat الnajaasaat اlmadkuura najaasaadka la soo sheegay markay la kulmaan almaa biyihi markay la kulmaan fain kaana qullatayni hadday laba qullo yihiin, laba qullo hadday yihiin, xabadda qullada ahi waa foosto haafkeed, foostada biyaha lagu shubto haafkeed weeyaan, foosto gobol. marka waa laba foosto gobol, waa hal foostoo dhammaystiran ama laba jalxadood leh, jalxadda biyaha lagu shuban jiray taasoo laba xaba ah. litir haddaan ku eegno 125 litir. fain kaana qullatayn laba qullo hadday biyihii yihiin lam yanjus, yani waa laba qullaya ka badan, waa biyo badan markaa, lam yanjus ma najaasoobayaan, biyahaas ma najaasoobayaan ilaa in gayarat in najaastii ay badasho mooyaane dacmahu dhadhankii aw lownahu midabkii aw riixahu ama urtii. wayadhuru wuxuu ku daahiroobayaa bizawaali tagayur, tagayurka oo meesha ka baxa. biyihii badnaa way isbedeleen, haddii isbedelkii marka dambe iska baxaba siday biyihii meesha u yaaleen, biyihii badnaa najaastu ee ku dhacday siday meesha u yaaleen bay isbedelkii unbaa meesha ka baxayba, way iska daahiroobayaan. wixii bedelay meeshii waa ka baxay, isbedelkii meesha waa ka baxay. ama biyo kalea lagu darayo markaasuu isbedelkii meesha ka baxay, markaa way daahiroobayaan. wain kaana aqala minhumaa haddii laba qullo biyuhu ay ka yar yihiin yanjusu waa najaasoobayaa biyihii bilmulaaqaat, la kulanka najaasta ay ku najaasoobayaan. wain lam yatagayar iyana isbedelin be, biyihii yaraa haddii najaas ay la kulmaan ama ay ku dhacdo way najaasoobayaan iyana isbedelin be. wayadhuru biyahan yar ee najaasoobay waxay ku daahiroobayaan bibuluuqihi qullatayn laba qullo in la gaadhsiiyo. biyo yar baa meel noo yaalay, najaas baa ku dhacday, ismay bedelin, waa najaas bay nidhi. see lagu daahirin karaa? in labadii qullo la buuxiyo, laba qullo iyo ka badan markay gaadhaan maadaama wax ka muuqdaaba una jirin way iska daahiroobayaan. wamataa laaqat الnajaasaat اlmadkuura najaasaadka la soo sheegay markay la kulmaan maa'ican dareere hayralmaa biyo aan ahayn, wax kaloo dareere ah oo aan biyo ahayn, caanihii iyo subagii iyo saliiddii iyo waxyaabaha caynkaasi ah, haddii najaasaadka ay la kulmaan tanajasa waa najaasoobaya waxaa dareeraha ahi bimulaaqaatihaa la kulanka najaasta uu la kulmay ayuu ku najaasoobaya. qaliilan aw kahiiran ha yaraado ama ha badnaado, tagayara aw lam yatagayar ha isbedelo yuuna isbedelin, walam yadhuru qad weligiina ma daahiroobayo. barkadan oo shidaala ama caana ah ama subaga haddii halkaa u yaalaan oo najaasee ku dhacdo yaa waxaas waa subaga ama caanaha ama saliidda waa najaasoobayaan, waa dareere aan biyihii ahayn. waxaan ku dhac biyuhu dareerahaasi aan biyaha ahayn ha yaraadaan ha bataan, ha isbedelaan yayna isbedelin, say doonto ha u dhacdo. wax dareere ah oo aan biyo ahayn haddii najaasiya ku dhacdo dareerahaasi waa najaasoobay. see loo daahirinayaa goordhow? walam yadhur qad weligii ma daahiroobayo. jirkaan caanaa ama barkadan oo caanaa haddii saxar ay ku dhacdo ha isbedelaan yayna isbedelin, waa najaas, lamana daahirin karo. haddii caano kaloo badan lagu shubo ilaa isbedelkii meesha uu ka baxo weli waa najaasun, oo sidii biyaha oo kale maaha buu sheekhu leeyahay, way ka duwan yihiin. nacam, culamada qaar waxay leeyihin maye saa loo adkayn maaye isbedelkun baa la fiirinaya. haddii wixii isbedel uu ku imidna de waa najaas, hadduuna ku imanna najaas noqon, oo sidii biyahoo kale un bay ka dhigayaan. halkaa shardigii koobaad ayaa markaa inoogu dhan oo ahaa waxa weeyaan طahaaraة الthawb والbadan والmakan. shardiga koobaad ee salaada iyo tafaasiisheedii. الثاني ka labaad darsiga dambe in shاء الlahu taعaalى aynu ka bilaabana. والlahu أعلم وأحكم. بالله توفيق.